Bismillah, assalamu alaikum. Maanta iyo fried rice, Somali fried rice. Maxaad ka taqaanaan? Ya, reer asxaabi bariis baan samaha. Anaa idin dhadhaminaya. Bismillah. sida cadaanka madayada may saari markaan u raamsado ayaan garanayaa dhadhankiisa. waa kan bariiskii khadra kitchen. waxaa la yidhahdaa maanta fried rice chicken. waa bariis shiilan. maxaa laga sameeyey chickenka? waxaan kusoo darayaa 2 midho ukun ah ama beed. spaysigiisa hore u haystay, horaan idinla wadaagaan filayaa markaan sameynaya chickenka. intana waa basal iyo toon. waxaan rabaa isku yaro shiilo. saliidda aan ku darayana waa leaf oil. marka xaggan waxaa yaala chickenkii iyo hawshiisii. gaar baan u shiilayaa isaga daqiiqdiisii. ukuntii wuu ka soo baxay hadda. daqiiqdii weeye tanina. hal mar baan ku wada ridayaa. shek baan sameynayaa. hawl fududaynta adduunka weeye. markaas waxaan rabaa videogana aada u soo gaagaabiyo. video dheer ma rabo. degdegii bay nagu batayoo noo dulqaad inaan daawano wax dhaadheer. basash markay soo yaro casaato waxaan haddana usoo noqonayaa ukun 4 xabadood oo beeda halkan ii yaala. waan shiilayaa jabababac. halkaas aan ku riday. allah mustacaan. in yar oo midaxa iyo in yar oo filfila baan ku darayaa. isagana gaar baan u dhiganayaa. hadda waxaa halkan ii yaala mixed vegetarian. alaabtaas waa 3 nooc oo kala jaada. waa qaybta freezerta laga soo iibsaday isagoo diyaara. chickenkii weeye siduu u shiilmay maaragtaa. crunchy chicken. jababac. maanta hawshoo dhan waa abu jababac, ma fahmaysaan? waa bariis shiilan. hilib shiilan baan naqaanay samaha iyo chicken shiilan. iyo maanta waa bariis shiilan. waliba shaash shiilanna way noo soo socdaa insha allah. bariiskan sida baastadan u kariyey. hal mar 2 jeer markuu karay ayaan biyihii kasoo miiray. because waa bariis in la shiilaa la rabaa. karsiimadii waxbaa u dhiman. markuu karsiimada wuxuu ku darsanayaa inuu hal mar ama 2 mar markuu soo karay kasoo shubay. halkan buu ku dhammaysanayaa karkiisa inta harsan. waxayeen magic weeye kaasi. magicii khudradda laga sameeyey. begeyta la yidhaahdaa baan u malaynayaa. iyo chicken masala iyo in yaroo khamuuna. aad baan ugu yaraynayaa. jas uun ku bilbilayaa. waa bilbil maaha xawaash culus ma rabo ku daro. in yaroo huruuda. waa midabyada iyo dhadhanka iyo xawaashka maaj aad yarayso dhadhankii cuntada runta ahaabaa soo baxaya. haddana waxaan kusoo darayaa beedkii ii shiilaa. waa runtu maanta waa asxaabu shiilshiilya. waa la kala kariyey. bariiskan haddaad barato bariis kale waa kala tegaysaan. allahu mustacaan. haddana waxaan kusoo darsanayaa soya sauce. soya sauce waa iyadu optional maaha, waa important. bariiskan markaad sameynayso soya sauce waa inaad ku darto. marka waxaan ku dadaaliyay inaanan ku badinin. 2 malgacdood oo quraan ku daray. because waa qayb ka mid ah kariskiisa. xabad bisbaas akhtara iyo kamsarihiiba halkan yaala. bisbaas akhtarka waxaan kasoo daadiyey kulaylkii iniinyihii dhexda. marka aad uma kululaanaya because ma rabo inuu karsamo. waxaan rabaa inaan dusha ku qurxiyo. allahu mustacaan. maxaa ka qurux badanta sama aragtaan? waa caynbacayn adduunyo maasha allah. waa ka asxaabu bariis shiilan. halka haddana la soo gaadheen dee laagta hanaga ilaawina. laagta is very important. waa salaamantihiin daawasho.